wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo weelinaya mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ka degmada Berbera maamulka wakaaladda biyaha Berbera ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay fooq laba dabaq oo dhiso doonto wakaaladda biyaha Berbera sidoo kale waxay mas'uuliyiintaasi xadhiga ka jareen saddex gaari oo cusub iyo sidoo kale gaadiid tiro badan oo ay dayactirtay wakaaladda biyaha Berbera laguna soo kordhiyay gaadiidka hore wakaaladda munaasabadan dhagaxdhiga oo ka qabsantay wakaaladda biyaha ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Berbera mas'uuliyiinta gobolka iyo ka degmada Berbera odayaasha iyo shaqaale weynaha wakaaladda biyaha Berbera ugu horeyntiina waxa ka warbixiyay dhismahaas iyo gaadiidkan cusub ee lagu soo kordhiyay gaadiidka hore wakaaladda biyaha Berbera maareeyaha wakaaladda biyaha Berbera Saleebaan Cabdiraxmaan Looliya maanta hadii aan u soo noqday ujeedkeena iyo waxaan maanta halkan xafladeena waxay ku daarantay sidaynu wada arkayno horteena ka wada muuqato dhismaha wakaaladdu ku jirta waa inta inoo muuqata diyaar baan u nahay annagu waxaanu ku bilownay maskaxaday waxaanu ku bilownay calooladay waxaanu ku bilownay ala tala saarasho iyo daacadnimo iyo kalsooni baan ku bilownay laakiin lacag meel noo taabo maanta aan oranayno waxbaanu ku dhisayna ma jirto laakiin waxaanu leenahay hawlahan soo qabanay runtii aad u adadka inaad ku qaadataan way adkeyd waxa kulaalka ka hadlay xildhibaan Maxamed Cali Dheere iyo Xaaji Xasan Maxamuud Warsame oo kamid ah odayaasha magaalada Berbera runtii waa maareeya dhalinyara waa shakhsiga ugu daada yar leh ee wareegto ay ku soo baxday ee degmada Berbera jooga haddana waa maamulka ugu dhiiran ee waxyaabaha 60 jiradu ku dhiiran kari waayeen ku dhiirida beebka jiray boqolaalka sanadood maamulka ka horeeyay baa ku dhiiran kari waayay waxaan wasiir aad iyo aad ugu faraxsanahay warbixinta halkan laga bixiyay oo aan qiraya anuguna maareeya hadda yarintii uu yimi inuu wax badan qabtay baan qiraya xogayaha dawladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo xogayaha gobolka Saaxil Nuux Maxamed Saleebaan ayaa iyaguna ku dheeraaday muhiimadda biyaha ay u leeyihiin bulshada kala duwan ee magaalada Berbera waxaan baarigaynaa dhismahan cusub ee geesinimada ku yimi ay dhagax dhigayaan waan baarigaynaa qodobadan aadka ugu bogaadinaya waxa kamid ah kor u qaadista mushaharka shaqaalaha iyo marxuusaska ama shaqaalaha ama cududu shaqaaluhu waa ta ugu weyn ee horumarka runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa socda magaalada Berberi inkastoo biyuhu ay yihiin noloshuna biyo tahay haddana Berberi waa meel aan marnaba iyo sinaba uga maarmi karin biyo gabagabadu waxa halka hadalka ku kala dambeeyay baayarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye saacada wasiir maanta indhahaaga ku aragtaa adiga ka mas'uula maanta waxay noo joogan dhis anagu amaani mayne waxaan leenahay waa dhis Ilaahay ku asturo inta uu joogo aynu la ducayno isku tashi baa muuqda daraarta inaan gaadiid lahayn baan u maleynayaa maxaa idin joogay maanta halkan ay taagan yihiin waa ku safkan muxuu ahaa la soo joojay magaalada Berberi inay meel lagu soo hirto oo la isugu yimaado oo sida magaalooyinka waaweyn ee adduunka la isugu yimaado inay muddo kooban ku noqonayso markay munaasabadaasi soo dhamaatay waxa mas'uuliyiintaasi si wada jir ah u dhagax dhigeen fooqan labada dabaq ee dhisan doonto wakaaladda biyaha Berbera iyagoo xadhigana ka jira gaadiidkan cusub ee wakaaladdu soo iibsatay صديق عرب سليمان تلفزيون عالمي هو كيبل تيفي magaalada Berbera shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega e-Dahab